حفلتنا عاون لو سميه ولكن قالقة عبد الرزاق أحمد فارح أمباسادور ديناري ورنانتي شخصي نبغى قالية وما تدي انتنا بقى نصور بحني مستر ديناري أقول أنا ويلكم لندن أي تقولي بمركي ووريسي ولندن يمادو رنانتي دي انتنا بوحن ما نصور بحني يدو دمان سبتيا إنه ولكن وصل وينه ماشي واحد مرة يبدأ دد بدن ومتقنا أمباسادور تبع مريسا يدنا وحلا يا ويلكم أيام يسودوا يا رجل دي مدح ظهري وصاحبها سوماليلاند waxaa jooga maxamed yaasiin ex-wasiir baa jooga waxaa jooga khadar caligaas ayaa isna jooga waa la wada jooga maanta waa la wada dhayaa Aynaawi oo TV-ga qaranka inuu isaga ahaa waxaa jooga Shiino barasaabkii wax qabadkiisa la ogaa intiina kale ay mutaqaanaa hablo badan oo sharaf badan iyo qiimeey qaayay laba way fadhiyaan caawa marka xafladda caawa inoo furan tahay waxa kale jooga ornaantii aan ku faraxsanahay walaalkii ciid ku talaale marka xalfada caawa inoo furanta waxa kale jooga Hussein Asad oo ah ragii asaasayaashii ya ismiga wadani kamid ah marka caawa loo wadanayaa reer Somaliland dhamaanteenba markaas si qiimo iyo qaaya leh ayuu ku soo dhaweynaynaa walaalkeen Ambassador Dinari waxaan ku furanayaa ayadaha Quraan Kariimka oo inoo akhrinayo Hussein Asad إنه كسر دويو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي نوافق وحلو بلاو مقع إلهي أيوم بركوبة كل بركة سنة بطلتها لا بعاول لكن أي نسكني سنة وحين أسوق عائلة دور كلمات كي هذا صاحب كي عبد الرزاق ديناري كل ضد بدن وأصحاب هذه المرية ويقرنا يان ضد بدن نوع كبرتين ودني سبيشال إف هو هاول رئيس هو سفير كجاركا أما ماستر الدارج لكن عاوة تايتلا سوى شغينا يا ردن عاوة وحوي وسيفيليان بين هاي رئيس مالان دمان دولة دينا ولا ينقل شوجا واحد شوجا ماستر كي أيان عشور سيدا أوجد عاوة واحد من هاي بلا تايتل أيان فليا سما عبد الرزاق ديناري وانين دليرة أهنتي ونأد إنه قاليا أنا قالها قالي جوا وحبضنا نسقسه مرة أنا منتر كيسان سؤال كأودي إيسي ومنتر جريني كان حق السياسة ده وانين خنتي متعلنا أو دليرة أو very active ما شاء الله وانا ننسى ما لأن ماذا يكون ده تعاو حنسكت ليني وردي وعشا برايف هذا هو كشوا له على كي شيء كوريدو وفيش إلا ما هعاوي ودي ذي هذا قسم كسيدية مركا وانا ننسى ما لأنا ولا يرى مستقبل سياسة في عالم ما شاء الله وانين متعلنا الحمد لله وانا عرقابا هم مسهلنا إيزي هو قادرنا عرقابا ما إيزي marka waxa la Cabdi Rasaaq soo dhaw maadaama ay tahay markii ugu horeysay sida filayo aad timaado UK ama aad nagu soo booqato Afrika Ingiriiska aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa in badan baan rajaynaynaa in halkan lagu timaado rag culus oo badan baa fadhiya marba inaan waxba sheego laakiin waxa la Cabdi Rasaaq waa nin mucaarad iyo muxaafadba reer Soomaaliland qaali ku ah mustaqbalkana insha Allah aynu rajaynaynaa inuu noqdo dadka ka mid noqdo xubnaha inagu haga Somaliland اعتراف كذا إن شاء الله. أدبن سودوين يا عبد الرزاق سودو صاحب. لكن أنت شرف بيت هاي إن عبد الرزاق ديناري عن حفلة كل سودوينه حلي وقف دليرة ورنت عدود ذاله كل يوم حلي ردد بدو حكي قانا المتقان ده كثير society كانوا وقع قانا لكن ردد بدو حكي قانا أنا وحير هذا كعنيرها محلي قدومي بيرو markuu waliba gaar ahaan uu Europe maaragtay uu shaqo u yimaado qof walba oo reer Somaliland oo qaranka u shaqeeya ama muxaafadada muqaarada noqdo calan iyo qaran bay wada dhisanaynaa marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa aad iyo aad magaalada ugu soo dhaweynaya London
waxaan kaloo iyaguna aad u soo dhaweynayaa runta aad ugu faraxsan asxaab fara badan in halkan caawa isku aragno aanu baryahan aanu is arag uu ka mid yahay maxamed yaasiin maxaa la yidhahdaa khadar cali gaas hal mustafa shiina iyo dadkan faraha badan si gaaran waxaan runta ugu mahad celinayaa dhalinyaradii qaban qaabisay xafladan uu ka mid yahay cabdi carab iyo reer west london runta mar walba dhalinyaradaasi waxay u taagan yihiin qof walba reer somaliland oo martii noo ah inay soo dhaweeyaan marka runta waxaan jeclaa in dhalinyarada ay shacabka kala masuugin ma garanayo ma magaca table 7 ba mise magaca dhalinyarada west london ma dhalinyarada cuslaatay magaca aynu ugu mahad celinaba aad iyo aad bay wada mahadsan yihiin mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba cabdirsaaq kusoo dhawo walaalo maxaa la yidhahdaa magaalada london waxaan rajeynayaa inaa waqti fiican aad asxaabta la qaadatid aad iyo aadna waad ugu mahadsantahay howlaha faraha badan ood qaranka u qabatid waa wada mahadsantihiin mahadsantahay ayaan shuur imikana waxaan kusoo dhaweynayaa waa ex wasiir maxamed yaasiin yidhaahdo dinaari isagana si gaaraan ugu soo dhaweynayaa magaalada london dinaari anigu beri hore aan bartay laakiin intaa waxaan ku aqaanay intaa wanaagga ah ee runtii laga sheegay waa nin niyad wanaagsan intaasoo ammaanoo la sheegay iyo intaan sheegi lahaaba waxay ku fiicnayd inaynu gooni isaga ugu sheegno laakiin haddaynu shir ka sheegnaa ka sii fiican waayo qofka wanaaggiisa waa la sheegaa dadaalkiisa waa la sheegaa ilaa maalintan dinaari bartay wuxuu ahaa qof runtii dadaal badan qadiyadda somaliland ku adag maantana si wanaagsan baynu ugu soo dhaweynaynaa london waxaanan rajaynayaa hawlihii ugu yimin inay si fiican ugu qabsoomaan ducada ugu dambaysana dee hadhow anuunbaa dhabarka kaasii dhirbaaxi doona marka shirkan aad iyo aad baan u salaamaya waana mahadsantihi aad baad u mahadsan tahay ex wasiir iminkana waxaan u yeerayaa qadar cali gaas oo ahaa isna agaasimihii tv-ga qaranka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سفيرك تدوينها ترى بدنا يكسر قلي مناسبتنا يكسر دوينينو ولكن عبد الرزاق ديناري ورأي وحنا ما عندنا يا تشوط مصابسي أما قاعد في كيستي سكوب كي يرتي يين توقت كده صوب طيبة ولكن وحنا لي سودو ونين عام بحي قدية الصومال لانين فوق عليه waxaan ku soo dhaweynaynaa magaalada london annagoo ka wakiila jaariyadda reer somaliland ee ku dhaqan dalka UK beriyaha waxaan moodaa inaynu dadkeenu kala yaro xidhiir furteenoo bridgingkii baa loo baahan yahay waxaan filayaa inay xafladani noqoto mid dadka reer somaliland bridging u noqoto aynaan kala xidhxidhnaan oo doorashadii baad moodaa inay waxoogaa ina kala yaro qoqobtay laakiin dadka reer london waa dad wadaniyiina waa dad isku duuban waa dadka markay somaliland noqoto mid ah marka cabdirasaaq waxaan ku soo dhaweynaynaa annagoo ka wakiila jaaliyadda reer somaliland waxaan fuleenay ku soo dhawo dalka UK waxaan u diraynaa qadiyadda somaliland waqtiga badan ee gelisay insha allahu tacaala waxaan fuleenay welcome aad baan idinku mahad celinaya inta soo qabanqaabisay xafladan ee soo keeniyay assalaamu calaykum baad u mahadsan tahay iminkana waxaan u yeerayaa برسالة مرة شينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الشهوار شبح لي وين رايح عقابوها لسه. أنا أقول رايح عقابوها لكن سيدي سمان. يعني يسووا اسكندر الموت. خلاص لماذا أبوك كان عارف يسووا اسكندر بس لا عقاب بشوي. شو واحد عرض ده صاحب تنما يدور بينه صاحب لما أقرأ. بتشوف الناس تحكي غير كرتا. ما أنت نعمل خلاص ترسنا عبد وانقطع رسالة يعني قدر. aynu mid ahaano laakiin siyaasaddu halkeeda subax marka horena habeenkiina waxaan isku dilaynaa godolka maalintiina gacmaynu saysanayna taas siyaasaddu waa halkaa weeye waa wax mabda ah oo qofku isbedbedeli karo waa doorashadaada iyo adiga dantaada ku xidhanta maalin qof baan dhisaynaa maalinba mid baad u arkaysaa inuu kusoo bixi karo waa iska siyaasadu ina kala dili mayso laakiin in dhaweyd waynala fogaato marka la isbahaysto xoogaa cadho yar way jiraysa taasna waxaan rajeynayaa raggu hogaamin doona waa ka mid cabdisaaq diinaari waa ka mid ummadda ururin doona waynu ka baxaynaa wixii ina soo maray waynu ka maydhan doonaa
oo dadku waa isu iman doonaa waxaan rajaynaynaa kusoo dhawo London dadka kugu soo dhaweynayaan reer London maahay oo soo gaargaaraa oo lagu soo dhaweynaya qaybna waan ka noqonay kugu soo dhaweynaya assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh imika waxaan u yarayaa Aynaawi tafadal wariyaha TV-ga qaranka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يالي مرويين أديات بانجي السلام يا دمان تيمبا وحان السلام يا سفير كينا جمهورية الصوماليلاند مرويان يو مرحلة كلا كوبتر جوكتا باسران قارله وحان تبدأ نعوريها هم بان لا يقول يعني لكن وحان كوكيل هاي تالية دقودة SSUK أيام قبل هاي عاونا قدومية هيك حكم تشوقي قدومية كحجين كيتونا لكن لبسط حفظان يمكن كجوجنا ينتي قدي هاي waxaanu aad iyo aad soo dhaweynaynaa Cabdirasaaq Dinaari waxaan leeyahay walaal aad iyo aad baad soo dhawaanaysaa anigoo ka wakiila jaaliyadda guud ee SSUK waxaanu nahay dadkaagii ummadaadii qofka wax qabta xisbi kasta ku jiray waxa weeye uu muuqdaa mar hadduu muuqdana in la iska rabtaago lana soo dhaweeyo xaq buu leeyahay marka waxa weeye caawa xisbiye ma lihin waxaana reer Somaliland oo isaysta oo mida oo soo dhaweynaya walaalkood soo dhaweynaya waxgaradkoodii halkana waxa ku dhalabaantii reer Somaliland waxaan idin leeyahay dhamaantii baadiyaad baa mahadsantii rag iyo dumar gabdhaheena soo iyo ragga soo qaybqabiya xafladana baan maaragtay u mahadnaqaya waxaan leeyahay qof kasta oo mas'uul oo inoo yimaado iyo qof kasta oo inoo yimaado reer Somaliland wax qabad iyo wax tarbe aan saas oo kale u soo dhaweyno aan mid uga noqono waxa weeye jaaliyadu markaas ay muuqanaysaa markaas aynu magac yeeranayna markaas aynu isku tiirsanayna markaas aynu meel wada jeesan karaa dadkeena iyo dalkeena iyo madana aynu hagi karaa aad iyo aad baa mahadsantihiin waa salaamantiin sallallahu alayhi wasallam waan salaamayaa dadka isugu yimi noloshan qiimaha badan inamiya hablaba waan salaamayaa waan soo dhaweynayaa Cabdirasaaq Dinaari waa nin active ah oo qiimo badan oo hawshu u kaco ka soo dhalaalaya waa nin daayar oo daadiisu aad u yar tahay laakiin magaciisu weyn yahay wax qabadkiisuna badan yahay aad baan u soo dhaweynayaa inuu London welcome to London baan leeyahay waxa weeyaan waa shakhsigii ugu horeeyay intaan imika meelahan joogay la isugu yimaado waxay muujinaysaa dadka waxa uu ku leeyahay isagu asxaabta uu leeyahay dhaqdhaqaaqiisa waxqabadkiisa iyo kartidiisa in la isugu wada yimaado oo ay halkan marayso safiirkii iyo madaxdii hore ee waddanka waxaan leeyahay Cabdirasaaq soo dhawow waxaan ka yimid Birmingham welcome to meelaha welcome to intii jiray meeyi waxa weeyaan waan u yimid ninkan waxaan ogahay kartidiisa muddo badan baan hawlo badan wada qabanay dhaqdhaqaaqiisa xisbiga aan ka wada tirsanahay hawsha uu hayo sida uu ugu dadaalo qaranka Somaliland had iyo goor sida uu ugu dadaalo uu aaminsan yahay inuu qadiyada Somaliland meel walba geeyo dhamaantiina waxaan leeyahay waad mahadsantihiin gabdhaha soo qaban qaadiyay ee aan ogahay qaybta ugu weyn ee ka qaateen oo waxbarashada ay ka mid tahay iyo inamada hore loo sheegay dhamaantiin waxa leeyahay waad mahadsantihiin madal qurux badan ayaa diyaariseen aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عبد أحمد السلام عليكم وعليكم السلام runtii waxaan aad ugu hambaleynayaa walaasha qaada waxbarashada buu ahay gudoomiyaha iyaga hawshan soo qaban qaabiyey runtiina ka dambeysay waxaan leeyahay wuxuu nalaad baad mahadsan tahay ambassadorkana waa soo dhaweynayaa reer gaabaad loogu hadlay ninkaan abtiga u ahay abti welcome to London بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين أخيارتي والسلام يا يجي جينا في الليل إمباسدور ويلكم تو لندن يبقى دم بسوقين واجب ولا ما تبغى تصدقت بدك دود دمانتين أنت حفلتك الصوتك ديناري كلنا سودو واحد شو قاعد ولا خفت إمباسدور كنا غالي نحي إذن أيام سودو ما شاء الله تبارك الله عادي أدونا أدونا سوق حفلته دمانتين أنت صار شيء أنت داوري سها ودرك داوري سها waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dinar deel u soo noqdo mar labaadna Allahi wa barakatuh dhammaantiin waan idin salaamayaa halka waxaan kusoo dhaweynayaa
صاحبكي ديناري ورنتي أنا هلقم بدن وضع قلي ملا بدنو ضل حسبي كم من أنا عاد وضع الشقيني والله ما أنت بوه رئيسي ولنا يميا أنا كسودو مقالة لندن كسودو bulshada ali runtii marka si loo eego weyn mideeyay baan anu qabaa maanta caawa diinaari waayo dad badan oo waji kala dadbayay oo aniga laftiga aan in badan aan saakin oo kala leexan jirnaan caawa soodaarkeena marka waxa leeyahay welcome diinaari ku soo dhawow waan salaamayaa ambassadorka ayaan cashuur barisaabkii hore gabilay waan salaamayaa waxaan kaloo halkan ka salaamayaa gudoomiyihii hore ee TV-ga qaranka qadar dhammaantiin waxaan leeyahay soo dhawaada si gaar ah waxaan soo dhaweynayaa saaxiibkayga qaaliga diinaari waana ku mahadsantihiin nimankan waxaan u yeerayaa ninka caawa nabada kulansiiyey runaantii masala diinaari bismillahi rahmaani rahiim waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runaantii waan ku faraxsanahay in dhammaan reer Soomaaliland caawan ku qalanno waxay ka turjumaysaa dareenka dalkeena iyo dadkeena waxaan mar labaad u mahad celinayaa dhammaan dadkii soo abaabulay ma mudni in aniga stage-kan la geeyo waxaan nin dhalinyara waxaan qabaa inaan wali dalka waxba u qaban laakiin haddaan idinka sheego taariikhdayda أنا واحد عبد خصوصا برتين باكستان اسمع الله سياسة قالوا حسب مركز جهاد كتير عشان تشري شركة لا وشغال لكن سفارة السومالي ده كان كتير مركز نباتوين بدنا نخرج كلنا واحد يسكت دينا إنه دولة باكستان هي لسه بيصيرنا كسر بدنا نشوف السومالي في سياش يا واحد عقد يبوي من تكسر كسر واحد قبل حيقول لك لا تكتشون بلاد العرقاب وكل شيء برعاية سكوك هو كان يطي ذلك هو حاول تجيبون وان وقت بدن قلي وابور مية قبل كسور يبرد أنا أتري عرقابو وانا لكن عرقابو ميلا بدن تكتيوانا يو ذلك أرضي بدن على صاحب أنا يدي ويبدي لحد الآن نتصل معه مركا runtii waxaan idin sheegayaa horta reer London ama reer UK reer Soomaaliya ka tilmaamayeen waxaad ku sugantiin dalka inta badan wax badan oo qofka joog kale ka tilmaamayeen caawa markaan wax farxadiya aan waxaan adeeyaa ku wadani laakiin waxaan ogayn inuu kubad ciyaarayno saddexda coachayda kala wataayeen Muusabixi madaxweynaha maanta iyo gudoomiye Ciro iyo Faysal Al-Raabi geebkii uu dhamaaday laakiin sidooyaashu baa soo waxaan ka idin sheegayaa siyaasaddu dhammaan mayso dalka iyo dadka ka hadhaya أنا واحد dadkii daroor u xay waxaan u qaadi jirnay ilaahay daroor iyo dulcad ma digow adaa daayay dib loo celi marka waxaan qabaa inaynu reer Soomaaliland mar walba unity-geena uu noqdo dalka iyo qarannimadeena waxaan rabaa maryo uga dirayaa maanta waa sanad guuradii 15aad ee ciidanka qaranka runtii ciidankeenu waxay mudan yihiin ammaan waa nin $80 qaato nolosha ku nool wadogtiin marka waxaan qabaa caawa in badan oo aan suuban hadda soo timaadeen in ilaahay qulubteena madeeyo tiriibka dambe intii naga codaysay halka ka dhooftay inaad noo codaysaan baashi way wareegaysaa ha ku coloobinina kursi nin 5 sano fadhiyo maanta madaxweyne muuse dhibaato badan oo dalkeena taala ka hortimi wax badan baa ku yaala sida xisbuugiisa ku qoray wuxuu sheegay maalmihiisa ilaahay markii lacag la waayay wuxuu waxa xarigeedii inaga yaaliya نقول كرسي كوسور ديا لكن دبعت بنا بعطال وحقبت بعض اللي نجربها وعلى اللي نجربها ولا التنمو شو تناسل حسبية الكود الشراء حسبية التاجرة لكن ديمقراطية تعديو كبرتينيا يورو كبرنا يعني دلك الجيم لكن هذا يقول بتشوف قبل يعرض بالعوام ما كان يسمع فيا نكوين ما أنت رجع وقوي بكتير مصدر هون عسبه يقولي خلاص هنا يبغى يقول باكت ما ديمو كباس يتطلع خوالس هذا ما هو بو هذا يدي idinka hada kala qaybina iyo dalka waalaya marka qabyaaladu way xuntahay waxaan qabaa maanta hadii dalka cudur ka dhaco way wada saameynaya hadii abaar ka dhacdo way wada saameynaysa hadii colaad ka dhacdo way wada saameynaysa waxyaabo badan oo ay wada saameynaya ma aha inaan ku kala tagno maalin la codeeyay qofku geeriyoon kara
waxaan qabaa reer Somaliland inanka jooga Saylac iyo Luqaya iyo inanka Warsangeli ee jooga Laasqoray iyo inanka Dhulbaantay jooga Taleex iyo intiina dhexda joogtaaba inaynu isku muqadarino dalka iyo dadka waxaan mahadnaqayaa Bastorayaan runtii 2009 baan isku baranay Hargeysa ana markaa dowladda u shaqeeya civil society way ahayd maanta shaqada qalabkay joogtaa xafiiskay joogtaa ma xafiis kulmiye waa xafiis Somaliland leedahay marka qolyaheena xisbiyada mucaaradka hawarkan inay u shaqeeyaan Muusabixi Somaliland u shaqeeyaan waan isdaliili karnaa xoolo iska sheegi karaa laakiin inuu ku culowno gidigeen dhamaantiin dadku waa xidid iyo seedi iyo abti iyo waabti anu laba abti baan leeyahay hooyada waa Muuse Ismaaciil laakiin waxa la dhawartay Dhulbaanta raga waxa ku intaasaan dheerin laba abti laba marka waxaan qabaa sidaa isugu timaadeen mar walba isugu kaalaya anigu ma filay laakiin dad baa soo abaabulay markay ii sheegay wax quul xafladda wadani tana ka mudan inaynu soo wada nimaadno xisbi qura maaha gudoomiyuhu markii ugu dambeysay nimeed doorashadu dhacday isugu iyo dhammaan reer Somaliland Cabdiraxmaan wuxuu kala hadlay war Soomaalinimadu maaha wax kala qaybin kara xisbiga wadan hadda tahay qofka kulmiye kula culuubinimo kulmiye waayo markii doorashadu dhacday cuf badan baa kacay dadkeenu shucuurtoodu isbedeshay kelmadaha Facebook laga wado iyo waxa waaqiciga dalkiisa lagu kala duwan yahay waxaan qabaa maxamed barta waxa uu sheegay wuxuu yiri tiimkii Arsenal muddo badan uu ciyaarayo taageerayaal ka baa taageero haddana ma win garay laakiin wali taageerayshadu taagay qoladii wadani de kulmiye shaw dhacay oo siirayo inta daadiisa garanaysan baa tanaasulkii iyo hanayntii aan madaxweynaha u heleynay waanu qaadanay si quluub iyo qalbi aan u qaadanay hoggaanka xisbiga ku daba taaganahay waxaan qabaa Somaliland mustaqbalkeenu wuxuu ku jiraa midnimadeena wadajirkeena xisbiga talada hayana mar walba la xaqaaqanaya bari hadduu wadan yimaado la xaqaaqanaya khadar maanta dhinac taagan baa bari dhaliilaya haddaan nimaadno kulama culoobayo marka waxaan sheegayaa shacabkii ninka siyaasiga qowl ka soo baxaya idinku soo doosay yaqaano ama shafiil wada deganaa wala dhig wada deganaa inaad ku culowdaan maaha aad baan ugu faraxsanay caawa waxaan idin sheegayaa in Ilaahay naga dhigo dad mida qulubta ka midaysan Ilaahay dalka inoo barkeeyo Ilaahay madaxda inoo hagaajiyo Ilaahay wax kastoo dhibaato qarankeena ku ay naga dulqaado siyaasadda keedku isbedeshay Soomaaliland cad badan bay leedahay qurba joog waxa laga rabaa sidii aad basaska isugu soo guri jirteen ku tagi jirteen Brussels inaad sidii ahaataan waxaa hadda ayaan tiraado shirba Brussels kan ayaan mudaharaadna sheeganta baa mudaharaad raac meel hawlina Somaliland bayulay maanta waxay hagaajisay xafiiska waa laga dhaxlayaa xafiisyada aanu shalay ka tagnay udub waa laga dhaxlay kuraastii iyo systemkii iyo dowladnimadii waa laga dhaxlay muuse waa laga dhaxlayaa marka waxaan qabaa dowladnimadii way koray wadajirkeenu maaha mid maanta la kala tartaraya dalka daahiriyaa wuxuu Ilaahay baa jaarka ku duraad mudurti baro Itoobiya iyo Djibouti iska badaa Itoobiya iyo Djibouti dadkeenu waa inanka Dhulbaanta iyo inanka Ciise iyo inanka Samaroon iyo inteena dhexda deganimo isku xasbanay waxa markaa ku danta ku jirtaa inaynu dowladnimadeena hagaajisano xisbinimadeena dhisno dimuqraadiyadeena xoojino laakiin dadka reer Somaliland ay noqdaan dad jecel oo asxaabtinimadooda jirto oo la hay karo waa mucaarad anu mucaaradnimada aan hay kuwa inuu dalku dumo laakiin waxaan leeyahay madaxweyne waxa soo naga qaldamay madaxweyne halka toosi madaxweyne halka wal sulugsanahay haddana waxa qabaa in la isku soo dhawaanayo doorashada way dhici doontaa waxaan qabaa in commissionku ay waqtigoodii intaanay gaarin si voluntary isaga tagaan baa laga yaabaa marka waxaan kula dardaarmayaan kaga tegayaa waxaa laga yaabaa in 4 cashan la joogayaa laakiin waan soo noqonay haddii aan la ihahdo insha Allah reer UK dadka wad ka tilmaamantihiin tilmaamtiina ha iska xumaynina wadajirkiina ilaaliya mar walba qarannimada u taagnaada qolada dowladda haystana marka la yiraahdo xaqna naga xanaaqina ilaa dadka kursiga ku fadhiyay ana kula qarannimada waan ilaalinayna hanaga bixinaa guul Somaliland guul iyo gobonimada Australia aad baan mahadsantihiin